السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamaya asxaabta ku xidhan page kala muran it sidoo kale kala socdo casharada youtube kala muran it waxaan anigoo ah engineer Axmed Xasan Qamaan waxaan ku soo qaadan doonaa cashirkeena maanta how to secure your Facebook. sidoo kale how to hide your friends sidoo kale how to close your tag. sidee u adkeyn kartaa facebookaga? waxaan u malaynayaa cashirkan ka horeeyay inaan kusoo qaatay facebooka habkaad u adkeyn lahayd, laakiin kan waa mid kasii duwan oo aan kusoo darnay marka saa u gashid akoonkaaga inuu automatically kugu xidho mobilkaaga. browserka aad ka gashay haddaad safe tiraahid mar walba waa xasuusnaanaya, laakiin haddaad safe aronood ka baxdid usaa qof passwordkaagu hayay emailkaagii uu siraado geli mobilkii uu weydiinaya markuu siraado geli markuu siraado geli emailka iyo passwordka wuxuu oran doonaa mobilkan kugu dirnay message fadlan mobilkaaga kasoo eeg messageka kadibna geli. okay, waxaan kaloo soo qaadan doonaa sidee uga dhigi kartaa mid adiga kuu gaara asxaabtaada iyo friendskaaga oon cidna kaaga arag adiga mooye. macnaheedu waxaan uga jeedaa friendska markaad geshid facebookiga waa kan, waxaan doortay profile. friendskayga qofka keliga markuu siiyo wuxuu ogaanayaa inta qof ee igu jira, kadibna uu ku dardarsanayaa qof walba. markaa saan friendskaaga kaaga arag saad u xidhatid friendskaaga ayaan kusoo qaadan doonaa. sidee ayaad u xidhi kartaa tagkaaga? tag macnihi waxa weeyaan wax profilekaaga lasoo dhigo, macnaheeduna tahay profilekaaga waxyaabaha lasoo dhigo. profileka waxaan uga jeedaa markaad profilekaaga ku jirtid macnihi sawirada lagu soo taag gareeyey. one second. waxaan eegi doonaa sawirka lagu soo taag gareeyey sawirada. sawirka ugu soo horeeya kanoo kale waa sawir lagu soo taaggareeyay video lagu soo taaggareeyay weyaan. markaa waxaa soo taaggareeyay Cabdishakuur Cali. markaas iminka anaa soo daayay kan, haddaanan soo dayn lahayn dee halkan musoo le waxa weeyaan anigaas tag ka qaaday oo aan perfect. markaa imika mid igu jira ayna tusi doonaa tagka. halkan buu isoo dhigayaa qofka waxa igu soo taaggareeyaa bartan buu oranayaa halkan nagu sheegayaa how see your activity on Facebook. halkana waxa weeyaan waa one bandit. waxa weeyaan macna waxa ku sugaya hal shay oo tag oo macna wax lagu soo taaggareeyay. marka halka 1ka 2 soo qoray 3 4 5 marka click siiyo haddii yahay tag wax fiican ah marka imika qofkaas dhashii kastar qofkaas ay soo taaggareeyay sawirka. marka waxaan add to timeline. haddii yahay wax fiican naxariis video faa'iido leh friendskaaga familkaaga sawir iska soo qaadeen oo profilekaaga ku soo taaggareeyay. laakiin haddii yahay wax qaawan ama waxyaabo diinta kasoo horjeeda dhaqanka kasoo horjeeda waxaad oranaysaa halkan baad click siinaysaa kadibna waxaad oranaysaa remove tag. sidoo kale waxaad ka bixin kartaa reports oo qolada Facebook way ka saarayaan sawirka haddii u arkeen akhlaaq xumo aad diiday automatically way ka saarayaan qofka sawirkiisa. marka kaana wax weeyaan tag weeyaan. wixii commenti ah noogu dhaaf emailka qamaan 778@gmail.com. sidoo kale axmed@masnain.com
sidoo kale lama huraan at@gmail.com. sidoo kale direct waxaad soo qaraaci kartaa free ama 443 5158. ashirkan iska bilaaban doonaa. waxaan ku bilaabi doonaa how to secure your Facebook. okay imika waxaan soo geli doonaa facebookgayga. marka intaan hortaan soo gelin waxaan dooranaynaa falaadha halkaad ka oranaysa log out. waxaad ka dooranaysaa settings. okay waxaan ka dooran doonaa security. waxaan ka dooran doonaa login alerts oo macnaheeda ah marka emailkayga lasoo galo facebookgayga marka lasoo galo automatically hay sheego. okay halkaa notification kid notification. okay sidoo kale email waxay ugu xiran 2 email takhri7@gmail.com. sidoo kale takhri@hotmail.com. sidoo kale command778@gmail.com. labadan email automatically wuxuu u dirayaa report marka lasoo galo facebookgayga. halkuu laga soo gelayaa browser cusub ama watan cusub marka laga soo galo direct automatically wuxuu usoo dirayaa gmailkaygan ayuu sheegi doonaa. waan eegi doonaa tijaabin doonaa. okay waxaan dooran doonaa login and profiles. waa maxay kan? waxa weeyaan waa gmail isagu wixii email ah ayuu soo diray automatic. kanna waxa weeyaan log a profile oo waxa weeyaan markasta loo galo waa inuu message isoo diraa facebookgaagii qof ayaa isku dayay inuu galo laakiin suurtagal weyday. sidoo kale wuxuu oranayaa qof ayaa facebookkaaga hadda galay ee adigu miyaa tahay. okay isla marka adu meeshii adigoo maqaayadaada jooga, adigoo jooga meheradaadii, adoo jooga suuqii, adoo jooga xaafadii markiiba ku ogeysiinayeen facebookkaaga la farfareeyay. okay marka waxaad oranaysaa igu xidh text message mobilkayga igu xidh marka mobilkaaga ku xidhan doonta. okay imika wakaa macnihii waxaan ka galay Firefox iyo Chrome xilli ahayd 4 June iyo caawa oo ahayd 7:59 habeenimo. okay labada uu sheegay reportkooda in laga galay login. marka kaasaan furi doonaa Facebook. 4 June ayaad gashay Hargeysa, waxaan laga galay Chrome. okay marka haddii wax weeyaan adigu ahayn uu ku sheegayaa haddii uu qoranayaa haddii adiga aanad ahayn. okay security Facebook ugu tuuray oo macnaheedu waxa weeye waa bedel passwordkii waxaas. okay wayahay okay waxaan yidhi was this you adiga miyaad ahayd? to have you sure login from this process, so we wanted to make sure it was you. waxaan hubinaynaa inaad adigu aad ahayn ama browserka aad ka soo gelin. marka haddii adigu aanad ahayn fadlan this wasn't me anigii meehi baad oranaysa. okay waayo adigu maad ahaynba. laakiin hadda adigu aad browserka ka soo gashay aad hubtid waxaad this was me anigu ahaa. marka automatically marka halkan wuxuu ku sheegay timekii 4 hours ago baa laga galay. detailska marka ku sheegay stays log out. okay time waxaa la galay Sabtidii June 4 inta la galay iyo markaba laga baxay log out. sidoo kale timeka oo ka IP addresska laga galay computerka oo ka IP addresska laga galay oo ka. okay inta la sida faanay waa haddii aad ku xidhid mobilkaaga waa waxa use code generator baa marka maxaad dooranaysaa security. markaad security dooratid waxaad sii dooranaysaa login profile. kan waa emailadaad ku xidhanaysaa oo sidoo kale ugu soo diraya. imika kan uu soo diray waa emailka waa kan weeyaan login alert weeyaan. kan laakiin iminkaan eegi doonaa isna wada jaabeynaa. okay marka intaan horta kan ka bixin login profiles waan tijaabinaa. okay waxaan geli doonaa browser cusub aan kasoo geli doonaa. okay
already we save gareysay passwordka login baan doonaa. Okay, markaan geliyay userkaygii passwordkii markaan geliyay wuxuu markaa iga soo hortuuray you have asked us to require 6-digit login code when anyone tries to access your account from a new device or browser. waxaan ku weydiin doonaa 6 number oo code ah markuu qof isku dayo inuu galo account-kaaga waxuu ka gelaya device oo mobile ama browser cusub. markaasaan ku weydiin doonaa when you receive markaad heshid your 6-digit code enter it to continue. geli ka socon markaa. okay, marka mobilkaygaan sheegaray in lagu soo diray ii soo dhacay waan hayaa. okay, Facebook waa furay 921795. okay, kan hacker walba isku daya markuu emailkaaga iyo passwordkaaga soo helo halkaa ma dhaafi karo. haye didn't receive a code at raadid xaguu ku gudbin doonaa only waa intan. okay, labada option ku siin doonaa inaad text me a log code inaad mar kale aad iisoo dirtid mobilkayga code. sidoo kale inaad submit request Facebook ka codsatid inaad ilowda. marka Facebook wuxuu ku oran doonaa ID card-kaaga geli inaad Axmed Xasan Yuusuf aad tahay. marka ma wejigayga miyaad samaysan kartaa iyo magacayga iyo waxyaabaha i khaaska aniga Facebook-ayga wax dhamay ma samayn kartid. okay, hadda waan geliyay continue baan plan eegna marka wuxuu yiraahdo if you save this browser you won't have to enter a code when you log in from this browser again. tan macnaheedu wax weyn remember browserkan wuxuu xasuusan doonaa haddii aad save tiraahdid in uu markale aanu ku weydiin doonin code. markaad soo geshid browserkan mar labaad in automatically waad u geli kartid. waayo mar walba codekan wax weyn automatically dadaa don't save hadda tirahdid mar walba ku weydiinaya codeka. mar walbana saan buu kusoo qoray ma save mise don't hadda tirahdid wax weyn mar labaad kusoo geliy uu ku weydiinaya. laakiin hadda save tirahdid mar walba isticmaalaysa kuma weydiinayo. laakiin browser kale another browser new hadda soo geshid uu ku weydiin doonaa passwordka. okay, codeka continue baan markaa ii save garay. okay, waxay soo qoray intii yareed aan imika sharaxay buu iga shakiyay Facebook-ga. intii yareed imika sharaxay way waxa la doonay degdeg inaan u geliyo aan intan bas 6 number geliyo dadna save aan ugu doonay laakiin degdegi waayay. marka degdegi wuxuu qaatay markii waxay ka soo galay someone recently tried to log into your account from an recognized computer. sidoo kale ku darso browserkan ka soo galnay waa browser private maaha browser caadi ah. kayna tuso marka you have a can incognito waxa weyn waa private browser. okay, marka browserkan aan ka soo galnay private browser iyo intii yaraan sugayay buu naga yara shakiyay. marka muxuu soo qoray qof ayaa isku dayay in uu galo account-kaaga meel aan laga garanaynin computerka or mobile browser. maxaa yeelay you enable login profiles. waxaad awoodday inaad geshid login profiles oo kan ii sheegay markana kan weeyaan login profiles. your account is temporarily locked. waa la xidhay. waa account-kayga dhammaa Facebook ayuu ku leeyahay waa la xidhay. please complete the following steps to regain access to your account.
wax weeyaan aniga igama xidhi karo laakiin qofka hackerku ka xidhaya. Okay, this was me. halkan markii aan log in yar halkaysa chrome baana la galay for Windows 8 today 12kii yaa fahmay. Okay, this was me aniga. Okay, save hadana ninku caadi degdeg buu gelaya wax temporary log in uu iga xidhay male waayo dawaanigiiba anaa wax isticmaalay laakiin hackerku wax weeyaan khalaas uu ku daayay. Okay, intaa wasla fahnay. Okay, waxaan doonay marka tag inaan xidho imika waxaan soo qaadanay in aad ku xiran kartid mobilka oo qofku dhaaf karin. waxaan kaloo tagii baan imika maraynaa waxaa inoo hadhay marka friends. Okay, step 2 waxaad dooranaysaa timeline attacking cities. Okay, who can add things to my timeline? Okay, anu waxaan ka dhigtay friends in saaxiibada oo qura igu soo taageerayaan. Okay, laakiin dadka bedelaysa edit badanaysa na friendska only me never qofna kugu soo taageermaayo. laakiin dad friendska yidhaahdo macnihi hadhow halkaas soo dhigaya dhinacan soo dhigaya xagga muu soo dhigaya halkan muu soo dhigaya dad friends doorto haddii kan loo ka diiday qof markuu soo wax ku soo taageeraya. Okay, about the friends who can I manage these people. Okay, inaka ugu muhiimsan aan doonno waa kan waxaan kale waad only friends waad karin karta dib malaha ugu muhiimsan waa tan waa timeline attacks kan baad dooranaysaa the friends ama enemy. Okay, taan wasla fahnay waxay noo hadhay friends kamaan doonno inaan qarino. waxaan dooran doonaa friend baan kala siinaynaa saan dadka nooga arag friends markaan kala siino edit privacy halkan ayaad kala siinaysaa. Okay, anigu qarsan yahay friends list waa friend list who can see your friend list only me. hataa public ka dhigo dadka noo arkaya friends ugu arkaya friends accepted. Okay, anigu only me ga sandoonina following dadkay soo follow gareeyay followers dadkay la socda kan waxba caadi dhimale dadaada aqoon baa iska flow kusoo ornay markaa problem ma jiro. laakiin inta ugu muhiimsan waa familykaaga iyo friendskaaga inaad qaraysid saanay dadku aanay arkin kaaga arki karayn. hadda waxaa la odhanayaa axmed baa ugu jira qofka dadna markuu waa aqbalaya markaasi dadkii ku khaaska adiga waa inaad only me tiraahdo. markaa cidi arki mayso inta qof ee kugu jira facebooka. markaa imika uun isla fahanaan marinaya saddexdii qodob ahaa sideed u adkeyn kartaa facebookaga ah mobilka inuu weydiiyo markuu saa soo galo browser cusub. imika wuu inoo sheegi doonaa gmailkiina inoo galo. Okay, waa kii imika u dambeeyey login alert chrome windows waa kii u dambeeyey imika wuu inoo sheegay. Okay, sorry 5 June waatan tii u dambeeyaan iminkan soo galna weeyaan. marka emailkanu waad kala soconaysaa mobilkaaga waad kala soconaysaa. Okay, marka imika saddexdii qodob ahaa how to secure your Facebook, how to hide your friends and how to close your tags. saddexdii qodobba aan ka ashirkeena ku saabsanaaba intaasuu nageegayay. waa inoo iyo kulanti dambe oo xiise leh casharkan mid lamidaan ku kulmi doono. anigoo injineer axmed xasan qamaan waxaan iga tegay sidaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad like siisaan pageka sidoo kale waxaad dooran doontaan watch video halka ku qoran tahay wuxuu ku gudbin doonaa casharadayna complete oo youtube-ka. halkan waxaad siin doontaa subscribe sidoo kale
videoga markaad casharka daawatid halkan hoosaad subscribe ka sii doontaa labadoos ka mid dad halkan ka sii siyaa kaba subscribe baad oran doontaa okay waa subscribe baad oranaysaa marka subscribe markaad siisid wuxuu ku soo geli doonaa halkan baad ka arki doontaa marka mar walba ha ilaawina subscribe siisid page-ka like siisid watch video aad si fiican u daawatid casharadii oo complete YouTube ku jiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.